السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawada kusoo dhawaada muuqaalkeena cusub diblomaasi hore oo Mareykan ah oo safir ka soo noqday wadanka Bolivia ayaa lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa dowladda Cuba in ka badan 40 sano basaaskan lagu magacaabo Victor Manuel Roca oo 73 jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu Cuba ka caawiyay ururinta xoog ka dhan ah Mareykanka tan iyo 1961 Mr. Roca waxa uu Mareykanka ugu yeeray cadow wuxuuna ka andacooday in shaqadiisa ahayd basaas qarsoon diblomaasigan hore ayaa jimcihii la soo dhaafay lagu xiray magaalada Miami kadib howlgal qarsoodi oo socday in ka badan muddo sanad ah xeelalaha guud Merrick Brandon ayaa sheegay in kiiskiisu yahay mid ka mid ah xadgudubidii ugu sareeyay uguna cimri dheeraa ee dowladda Mareykanka ku sameeyay basaas ajnabi ah in ka badan 40 sano Victor Manuel Roca waxa uu ahaa basaas dowladda Cuba waxaana uu jagooyin ka raadinayay dowladda Mareykanka taasoo u sahlaysa inuu helo macluumaadka aan la wadaagin bulshada iyo awoodda uu ka sameyn karo siyaasadda dibadda ee Mareykanka Roca wuxuu ku dhashay waddanka Colombia wuxuuna ku soo barbaaray magaalada New York isagoo shahaadooyin ka qaatay jaamacadaha kala ah Harvard iyo Georgetown wuxuu soo noqday safiirka Mareykanka ee u fadhiya waddanka Bolivia intii u dhaxaysay 1999 ilaa 2002 sida ay sheegeen dacwad oogayaasha sidoo kale wuxuu dowladda ka soo qabtay dhowr jago oo uu ku jiro golaha amniga qaranka oo uu ahaa 25 sano marka laga soo tago Bolivia wuxuu sidoo kale ka soo shaqeeyay Argentine, Honduras, Mexico iyo waddanka Dominican Republic Mareykanka iyo Cuba ayaa waxaa ka dhaxeeyay xiriir aan wanaagsanayn tan iyo markii Fidel Castro uu afgembiyay dowladda Mareykanka taageero 60 sano ka hor Mareykanku wuxuu 1960kii Cuba uu soo rogay cunaqabatayn ganacsi madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynihii hore Cuba Raul Castro ayaa sanadkii 2015 ka qaaday tillaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda inkastoo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu markii dambe wax badan ka bedelay dukumiintada oo maxkamadda Isniintii laga soo bandhigay ayaa muujinaya in Mr. Roca uu safaro badan ku tagay waddanka Cuba halkaas oo ka caawinayay horumarinta danaha mas'uuliyiinta Cuba laga soo bilaabo 1981 ilaa iyo hadda dukumiintadu waxay bixinayaan faahfaahin yar oo ku saabsan xogta la sheegay in Mr. Roca uu la wadaagay madaxda Cuba balse waxa ay muujinayaan howlgalkii qarsoonaa ee FBI-da lagu soo xiray bishii November ee sanadkii tagay sarkaal ka tirsan FBI oo isqariyay ayaa Mr. Roca kula xiriiray aaladda WhatsApp-ka isagoo sheeganaya inuu yahay wakiil ka socda adeegyada sirdoonka ee Cuba isagoo gaarsiinaya fariin ka timid saaxiibadiisa Havana saddex kulan oo la yeeshay basaaska qarsoodiga ee FBI-da Roca wuxuu bilaabay inuu bixiyo faahfaahin ku saabsan waqtiga siduu qarsoodiga ee ula shaqeeyay dowladda Cuba sida lagu sheegay dukumiintiga dacwadda lagu soo eedeeyay Roca wuxuu bilaabay inuu bixiyo faahfaahin ku saabsan waqtiga uu sida qarsoodiga ula shaqeynayay dowladda Cuba waan garanayay sida saxda ee loo sameeyo waxaana cad in hay'adda sirdoonka ee Cuba ay la socdeen waa hawl dheer mana ahayn wax fudud Mr. Roca ayaa lagu eedeeyay inuu sidaas u sheegay wakiilka qarsoonaa ee FBI-da wuxuu si joogto ah ula socday oo u dabagelayay hawshiisa isagoo u shaqeynaya sida basaas u shaqeeya sirdoonka Cuba Mr. Roca ayaa lagu eedeeyay inuu ereyga annaga u adeegsaday Cuba iyo nafsadiisa markii uu la kulmay basaaskii qarsoonaa ee FBI-da markii wakiilka oo isaga dhigaya basaasa Cubaan ah uu weydiiyay weli madala joogtaa Mr. Roca wuxuu ku jawaabay inuu ka candooday su'aasha la weydiinayo daacadnimadiisa waxay la mid tahay su'aashaad weydiisay inaan ragnimadeeda shaki gelinayo dhacdooyin 1996 ka dhacay Havana ayaa sababay dhimasho 4 nin ah
diblomaasiga hore ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in dowladda Mareykanka siiyey warar been abuur ah oo marin habaabin ah iyo inuu sameeyey hadallo been abuur ah uu ku doonayay inuu helo dukumiinti socdaal sida ay sheegtay waxda cadaaladda. warbixin kooban uu ku jeediyey Isniintii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay in wasaaraddu ay kala shaqayn doonto hay'adda sirdoonka Mareykanka si loo xadido waxyaabaha ka dhalan kara xadgudubyada amniga. aad u mahadsantihiin daawayaal.